الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله وبعد ولا ليال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحان إن شاء الله تعالى إنه سلام يا سلامتا إسلام لماذا آد كأقيم يقبضا إلهي كتاب كيسا لوسود الجي سبحانه وتعالى وحان آدو سلام يا أمضى جيس كأفريكا كنول بلاران afka Soomaaliga ku hadasha meel kastood kaga joogtaan adduunkan aan ku noolahay salaanta waxa igu wacan inaan inagu salaamo oo inii soo diro salaanta waa ilaa iyo tahniyado aad u fara badan marka dambena kelmad yar oo kooban baan ka oran doonaa arin aan ugu tala galay inaan nila wadaago horta waa marka ugu horeysa tahniyada koobaad horena waan isku soo dirnay waa tahniyadii ciida bishii Ramadaan naga dhamaatay عيدي فطرينا سو عيدني waxaan nigu leeyahay kullu aamin wa antum bikhair sanadka sanadkii sanada kale ilaahay nagu gaarsiiyo bashbash iyo barwaaqo arinta labaad aan jeclahay tahniyada sida ay iskugu xigaan baan inii tahniyadeynay waxaan tahniyadeynayaa ummadda Soomaaliyeed ee ku nool Somaliland 26 bisha June sanadkan 2017 waxay u dabaaldegeen xafladii culusayd iyo dabaaldegii culusaa ee guumeysiga Ingiriisku markuu amba maxamiyada Ingiriisku markii ay ka sara kacday amba laga kiciyay dawladii weyneed ee Ingiriiska goboladaas ummadda Soomaalidu ay degto ay leedahay oo ah Somaliland marka waxaan ku leeyahay ummadaas weyn ee halka degan iyakana feed wanaagsan iyo ciid wadaniya oo aad u wanaagsan waxaan kale oo salaan taas lamida u dirayaa jamhuuriyadda Djibouti ee u dhashay oo ah dabaaldegii 27 June 2017 looga dabaaldegay meel kasta reer Djibouti joogan 40 jirkii Ilaahay subhanahu wa ta'ala kadib markuu nagu xoreeyay isticmaarkii aadka u foolxunaa ee nahaystay 100 sano in ka badan dalka Djibouti ka talinayay min 1860 ilaa laga soo gaaray 1977 markaas taasina ummadaas waxaan ku leeyahay ciid wadan oo aad u wanaagsan qodobada saddexaad ee tahniyada u dirayo waxa weeye ummadda Soomaaliyeed caasimada ummadda Soomaalidu ay leedahay Muqdisho iyo koonfur oo dhan oo guumeysigii iyo maxmiyadii iyo isticmaarayadii Talyaanigu ay ka dhamaatay iyadana bisha Yuulyo amba Juillet amba July nibasoo u yaqaano kowdeeda oo dhammaan ummadaasina iyaduna ay soo ceshatay xorriyadii loo soo dhintay ee u soo dhinteen halgameeyaal dumar iyo ragba iskugu jira oo ku xusan taariikhda iyakana waxaan ku leeyahay ciid wadaniya oo wanaagsan marka intaas waa farxad waxaan iloobeyn bishan kowda July inay ummad fara badan oo Soomaaliyeed reer Djibouti waxay dooniba ahaadaan canfar Soomaali Carab ahaadaan amba Soomaaliduba guud ahaan degan dalkan Canada kuwa deganaasha haysta iyo kuwa wadaniga aba waxay kowda July u dabaaldegeen iyakuna maalintii la asaasay wadankan Canada dawlad confederalismigiisa la asaasay oo ku eekanayd kowda Juillet 150 sano ay ka soo wareegtay markaas tahniyadahaas ummadahaas aan si uun cilaaqo ula leeyahay iyaan u dirayaa farxadaas walaalayaal waxaan jeclahay inaan ka hadlo afar kelmadood oo ku saabsan dabaaldegyadaas kadib markii aan daawaday in aan wixii aan kala soo baxay nila wadaago waxaad ogtihiin ikhwaani fillah walaalayaal isticmaarku waxa loo yaqaano maahin marxalad amba etaab historic ah oo taariikhi ah sida ay in fara badan culimada taariikhdu ay sheegaan isticmaarku ma aha wax bilaama oo dhamaada sida ay qaar fara badan malahooga ay u maleeyaan isticmaarku waxa weeyaan waa phenomenon waa daahiro bini aadanku intuu jiraba soo jirtay ummad kastina waa la guumeysanayeen ummad kastina waxbay guumeysanaysay marka ummaduhu waxay u kala baxayeen taariikh ahaan غالبة ummado adkaada iyo maqluuba ummado laga adkaado adkaantuna waxay u kala baxdaa laba nooc in lagaaga adkaado askari oo military ahaan laga adkaado iyo in laga adkaado siyaasad ahaan iyo xadaaro
waxaana ugu daran marka laga adkaado siyaasad iyo xadaaro ilbaxnimo lagu dilo amba political lagu dilo isticmaalka qaarkii wuxuu u eegyahay mid dhinaca askariga awna sidii ka jirtay wadanka koonfurta Afrika amba meelaha qaar wadanada carabta lagu sameeyay wuxuu ahaa ixtilaal askari ah laakiin ta ugu daran ee ugu problemaysan waxa weeyaan waa ixtilaalka siyaasiga ee xadaariga ah waa ta uu imaam ibn khaldun kitaabkiisa weyn ee muqaddimada uu ku tilmaamay ummadaha laga adkaadayo had iyo jeer waxay daba dheerdaadiyaan ummadaha ka adkaada waxayna kaga daydaan dar xidhashada iyo culture-ka iyo waxbarashada iyo akhlaaqda iyo habnololeedka dhammaantood wa fi shu'uuni kulliha buri sha'ni walba way kaga daydaan marka saas daraadeed waxa weeyaan anu uma arko guumaysigu inuu tagay sidoo dad fara badan u macneeyaan waxaan u arkaa guumaysigu wali inuu joogo guumaysigu Afrika kama tagin wadanada carabtana kama tagin wadanada muslimiintana kama tagin waxa ka tagay waxa weeye shakligii guumaysiga wuxuu inoo guumaysanaya si directiya amba si mubaashira amba si toos ah imikana wuxuu inoo guumaystaa si indirectiya si qeyr mubaashira amba si aan toos ahayn iyo inoo guumaystaa guumaysigaas noocaas ah wali inagama tagin waxaan bedilnay sidaan maalintii hore muxaadaro ku sheegay qoraal aan soo dhigay Facebook ana dadka afka carabiga yaqaan akhriyan aan ku soo dhigay waxa isbedilay 3 arrimood waxa isbedilay waxa weeyaan calankii maradii waan bedilay waxa isbedilay qofkii in xukumayay nin cad buu ahaa nin madow buu noqday waxa isbedilay arin saddexaad oo isbedesha jirto markii hore lama ictiraafsan inaan dawlad nahay jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa iyo ururka Afrika iyo jaamacadda carabta iyo urur kasto caalami oo jira ayaan kamid noqonay marka waxaan noqonay un dawlad la ictiraafsan yahay magacii dawladda sidata laakiin xaqiiqada wali ma nihin dawlado xora arintana wax badan baa inoo cadeynaya oo aan tilmaami doono marka ikhwaani fillah had iyo jeer marka aan la dabaaldegayo waxa ka muuqata meel kasto joogno hadaan afka Soomaaliya ku hadallo iyo wadanadeena la midka Afrika oo dhan dabaaldegeena waxa ka muuqata 3 arrimood oonan macno fiican aan sheegin kow waa bandi dabaaldegeena waa hees waa farxad waa maartay waa la daansaya bal wadanada qaarkood waxa loo yeedhay adduunka wixii fanaaniin jiray yaa looga yeedhay si ay meeshan uga heesaan si aan ruwaayada dhigayno amba bandi aan dhigayno marka annagu xuska calanka aan xusayno daahirada uu qaatay arinta labaad oo xusku qaatay waxa weeyaan in la sameeyo défilé amba ciidanku ay maraan isticraad askari waxa loo yaqaan oo ciidanku ay maraan maartay siyaasiyiinta hortooda oo salaan laga qaato taana waa sameynaa arinta labaad ee la sameeyo waa arinta weeyaan arinta saddexaad ee la sameeyo arinta ugu adag waxa weeyaan in aan wax yar ka sheekayno taariikhdii gobonimada oo ku soo koobno 15 amba 10 minute kadibna laga sheekeeyay kadib madaxda imika xukunta waxa ay qabteen oo taa la culaysiyo iyadoo oona waxa ay qabteen iska bayartahay marka qaarkood marka saddexda arrimood baan piilaan ahaan taqyiim ahaan aan ka arkay wixii aan xaflado la dhigay oo dhan ee aan daawaday xataa xafladaha lagu dhigay Europe iyo America heesoon bay hayeen marka sidee bay ahayd maanta in xafladaha loo dhigo mesela koonfurta Soomaaliya jamhuuriyadda Soomaaliya ee federaalka ah waxa weeyaan waa 1960kii 750 sano iyo xortahay 750 sano 60kii sano waxa ka hadhay 3 sanadood marka su'aal in la isweydiiyo waa inay isweydiiyaan 4 qolo oo ay fadhiistaan si piilan loo sameeyo labo Somaliland iyaduna waa saas oo kale 750 sano Djiboutina 40 sano iyaan xornahay marka su'aashu waxa weeyaan su'aasha piilan 4 arrimood in la isweydiiyo piilan la dhigo oo 4 qolo ay fadhiistaan ay su'aal isweydiiyaan baaxid qolada ugu horeysa in su'aasha isweydiiyaan waxa weeye waa ragga loo yaqaan aqoonyahan mufakkiriin baa dhada afka carabiga faransiiskuna wuxuu dhahaa penser af Soomaaligana ragga maanka maalan u bixin karnaa maxaa yeelay aqoonyahanku waa musaqaf marka waxaan oran karnaa intellectual la wadada intellectual qofka musaqafka ah laakiin markaan leenahay mufakkir waa penser waa maankii maal ninka maanka maala labo waxaa la fadhiisan lahaa musaqafiinta aan sheegnay intellectualka iyo culimada
qoladaasi inay fadhiistaan bay ahayd ay su-aal isweydiiyaan piilaanka uu ka dhalanayo. su-aashu waxa weeye horta ma dad xoraan nahay? kow, maxaan ku xorownay? labo, maxaanu xorownay? saddex, maxaa xaqiiqsamay markaan xorownay kadib? afar, halkeen u soconnaa? shan, ma ku faraxsannahay xorriyadda aan qaadanay? lix, toddoba, ugu dambayn maxaa inuu xaqiiqsamo aha oon aan inoo xaqiiqsamin? arrimahaas, su-aalahaas si cilmi ah waa inay uga jawaabaan aqoon-yahanka afka Soomaaliga ku hadla iyo aqoon-yahanka afka Canfariga ku hadla ee degan geeska Afrika. qolada labaad ee inay fadhiisato su-aal isweydiisaa wax weeyaan waa siyaasiyiinta weeyaan. siyaasiyiinta wadanadeena xukuma iyakuna waa inay piilaan sameeyaan. piilaanku waxa weeyaan war ninkii caddaa ee Afrika ka talinayay iyo carabta xukumayay, muslimka xukumayay, dunida oo dhan xukumay, wuxuu ku laamay meeshii uu ka yimid, inkastuu meelaha qaar ka balaaminba sida America oo kale. laakiin meelihii kale Afrikana waa iskaga tagay, carabna waa iskaga tagay. su-aashu waxa weeyaan ma weli waxaan ka shaqaynaa haddaan nahay siyaasiyiintii xukumaysay wadanadaas, ma wasaaradaha arrimaha dibadda iyo wasaaradaha cooperationka ee tacaawunka iyaan shaqaale ka nahay ee dowladaha waaweyn, mise waxaan nahay dad shicibkoogu ay doortaan oo ku yimaada rabitaanka ummadda? su-aasha waxay u taallaa siyaasiyiinta. labo, siyaasiyiinta waxa u yaala ummaddeena si aan u xoreyno maxay inaga rabtaa? ummadda reer Jabuuti, ummadda Soomaaliyeed say xor u noqdaan maxay inaga rabtaa? maxaa ah inaan ka dhaqaaqno, maxaa ah inaan u dhaqaaqno? arrinta saddexaad, siyaasi iyo leadership waa inaan kala saarno. ummaddan aan geeska Afrika leadership ma haysataa. siyaasi waa daf, laakiin leadership ah oo qaa'id ah oo hogaamiye ah ma haysataa. run ahaan geeska Afrika hogaamiyaal culculus way soo mareen oo Jabuuti oo kale wuu soo maray. Maxamuud Xarbi baa kamid ahaa, hogaamiyu ahaa. xasan guuleed baa kamid ahaa, hogaamiyu ahaa. marka dad hogaamiyaala Jabuuti iyo geeska Afrika inta kale way soo mareen, wad walbana u yahay dadkiisa. Axmed Diini baa kamid ahaa, Allah yarxamo, isaguna hogaamiyu ahaa. laakiin su-aashu waxa weeye maanta ma jiraa qof hogaamiye ah oo ummadda intuu sara joojiyo u tilmaamaya dariiqa iyo dhibaatada ay marayaan? arrintaa waa piilaan in laga sameeyo oo siyaasiyiintu ay sameeyaan. qolada saddexaad ee inay istaagaan oo ay joogsadaan ay fadhiistaan waxa weeyaan waa qolada aan oran karno waa dhalinyarada, waa shabaabka. shabaabka aan soo arag guumaysi, aan calanka ku dhex dhashay. maanta wixii calanka dibadii dhashay maaha kuwii dagaalada ku dhashay Soomaaliya ayaa 30 jir ah. kuwii Jabuuti dhashay calanku 10 jir ah, maanta waa 30 jir weeyaan. marka su-aashu waxa weeyaan haddaba dhalinyaradaasi ma garanayaan taariikhda la soo maray iyo meesha loo soo maray si gobonimo loo helo, laakiin waxay og yihiin xaaladda ay ku nool yihiin. marka dhalinyaradu waa inay su-aal isweydiiyaan iyakuna piilaan ah. meeshan aan ku dhalanay aan xorriyadda ku haysano, xorriyadda aan haysano waa noocee weeyaan? ma xorriyad buuxda mise waa xorriyad naaqis ah? waa su-aal muhiima. ani waxay ila tahay xorriyadda aan haysano waa xorriyad naaqisa. siyaado ma haysano, wadanadeena kama talino, waana lala taliyaa, amba waana lagula taliyaa, amba waa nagula dul taliya, waa nagula dul taliyaa. inta waad oran kartaa. marka su-aalahaas dhalinyarada ayay u yaaliin. qolada ugu dambaysa ee piilaaga inay samaysaa waxa weeyaan waa rag la yidhaahdo oo dadkiinu mufakiriin ay ku dari karaan culamaa uddiin baa loo yaqaanaa. waa culimada islaamka weeyaan. culimada islaamku waa culimada sida masdarul ilhaam, waxa ummadda kiciya. kitaabu rabbi alcaalamiin, kitaabkii ilaahay, wa sunnati nabiyi alanaam, nabi Muxamed sunnihiisii sallallahu alayhi wasallam, wa fiqhu lislaam, islaamka fiqigiisa sidaan. culimadaas Soomaalida iyo geeska Afrika degan boqolkiiba 90 waxay mashquul ku yihiin baabu tahaara iyo baabu lxayd. kitaabka weli waxay kasoo bixi laayihiin tuwaaleedkii, kaniifkii, yani axkaamtii kaniifka, axkaamtii musqulaha, axkaamtii dahaarada ayay kasoo bixi laayihiin. ummadda geeska Afrika deganna waxay u baahan tahay axkaamtii alcaqd alijtimaaci, sidee loo sameeyaa bulsho, sidee ummad loo dhisaa. kitaabka ilaah bay ka buuxdaa. haddaan Jean-Jacques Rousseau iyo Voltaire iyo ku meeraysano wax badan ummadeenu ay lahayn baan uga soo saarinaa. laakiin ummadani waxay lahayd wuxuu ka buuxaa kitaabka ilaahay tabaaraka wa tacaala iyo sunnada nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo dhaqankeennaba. dhaqankeena Soomaaliyeed, dhaqankeena Cafareed
ee mashaakilka ugu culus geedka hoostiisa lagu dhameynayay ee la baabiyey odayga la dilay ee laga qaaday shaqadii uu qabanayay oo gaaladuna ay fahmeen inay odayga shaqo u sameeyaan ay majlisu shuyuuq sameeyeen oo ay yidhaahdeen odaygu halkaa ha ka taliyo oday lagama maarmi karo odaygaa bilaa shaqada laga dhigay shaqadiisu wuxuu ahaa inuu xaliyo problemyada iyo mashaakilada ugu waaweyn ee haysta oonan la oran noloshaadu waxay ku xidhan tahay aqaarjaada amba laga oran noloshaadu waxay ku xidhan tahay mishaar yaro dowladda lagaa siiyo ee noloshaadu waxay ku xidhan tahay jiritaanka ummadaada ummadda u fikir dhabar noqo sidii qur-aanku yihi alaysa minkum rajulun rashiid walaalayaal bilaangaas wuxuu inoo keeni lahaa in aan fahno mushkiladda ugu weyn ee Afrika ka dhacday oo ah dadku inay ku xuruubeen isticmaar laakiin ay u gacan galeen isticbaad arrinta waa in wax ugu fahno Malik bin Niba aad u sheegay rahimahullah maxay ka dhatahay waxaan ku xuruunay guumeysi cad laakiin waxaan gacanta u galay adoonsi nin adiga kula mida oo madow walaalka in adeerka in abtiga gacalka maaragtay waxaas oo dhan iyaad gacanta u gashay qof adiga kaamida gudumoy ima gooyn karteene gabalkaybaa kugu yaal marka nin gabalka ah ayaa meesha jooga oo ku adoonsanaya siduu sameynaya guumeysigu unbuu sameynaya xabsigiina u haystaa askarigii guumeysigu haystay ummadda ku raafiyeen u haystaa sidii guumeysigu dadka u leeyna uu leenayaa marka qaarkoodna wadanadii baa baaba'ayaba sida Suuriya ka dhacday Soomaaliya ka dhacday markii hore amba ka dhacday Liibiya ka dhacday amba Yemen ka dhacday amba ana in xukumi amba wadabaaysi guumeysigu wuxuu niga yiri ana in xukumi nama xukumaysi markaan ku oranay waxba ma leeyahay niga tagi laakiin mid in xukuman in isaga buu naga yiri aqligu lahaa marka mid in xukumi noo samay laakiin wadankii ma baabiin kan isagu waxa uu leeyahay ana in xukumi hada ay diideena waad baabaaysiin hadaba walaalayaal guumeysigu waa kaas oo ku xuruunay laakiin guumeysigii waxaan ku xuruunay shakliga ahaa guumeysigii xaqiiqiga ahaana wali hada waan ku jirnaa marka aan dabaaldegayno su'aalaha runta ah waan ka baxsanaa ma aan arag television ka doodaya niqaashkaas waan ka arkay matalan telefishinka Al Jazeera dhacdo isagoo laga dooday Afrika ma xurowday Arabtu ma xuroobeen niqaashkaas waan arkay laakiin inta joornaal television ee Soomaalidu leedahay dooda ma soo dhigin maan xurownin mise maan xuroobin telefishinka Djibouti iska badaa ma oran karayo maan xurownin mise ma xuroobin afka waan korna waan xurownay laakiin haddaan xurownay sidaan u xurownay maxaan ku xurownay su'aalaha la isma weydiin marka waxaan ugu yeeri lahaa dadku inay iska daayaan baandhiga badan iyo sheekada badan iyo farxadda beenta ah iyo sanadadan la iska tirsanayo aan joogsano aan istaagno su'aalaha is weydiino halkeen ka imanay halkeen joognaa maanta halkeen ku soconnaa qosolka badan iska daaya reer Djibouti gaar ahaan majliska iyo jaadku waxbay nima tarayo iyo is-ilowsiintu iyo maaragtay wadankan qof iyo laba qof oo fikirtay anaku shaqo kuma lihin waxaas macna ay leedahay ma jirto mas'uul baan wadanahay waa doonidii weeyaan nabigu sheegay sallallahu alayhi wasallam ee hadduu qofku dalooliyo dadku dhan la rogmanaysa haddii la wada ilaashadana wada badbaadisay dadkoo dhan waa reer Djibouti dadkoo dhan waa reer Soomaaliya dadkoo dhan dhulkii wada leeyihiin dadkoo dhan ha wada fikiraan dadkoo dhan dhulkooga ha difaacdaan marka waxaan aad uga xumahay oo inaan halkan aan ka sheega aan jecelahay gabadha walaashay ah ee Nimca Jaamac ee u soo halgantay calankan intii ay kareysay ugu soo halgantay hadal heesteedan la wada xafisan yahay gaban mayno indha gabirsan mayno waxa inala gudboon waan qabsanayna oo kala ahayd heestaas taariikhda ku gashay gabadhaasi oo ragii sameyn la garanay Ibraahim Garli iyo Xasan Cilmi Ilaahay u naxariisto subhanahu wa ta'ala waxaa dhacday inaa loo diiday inay maanta ay wadankeyga ka heesto iyadoo la keenay fanaaniin Afrika meel kasta laga soo ururiyay inay tiraahdo kelmadaas gaban mayna tiraahdo inay tiraahdo dhulkaygo inay tiraahdo wadankaygo iyadoo muxaafida ama mucaarida waa reer Djibouti weeyaan laakiin waa loo diiday aad baan uga xunnahay waxa weeyaan iyada iyo qof kasta oo dalkan u soo dhintay ama u soo halgamay jamhuuriyadda Djibouti iyo ummadda kale ee walaalka nahayba qof kasta oo maanta xorriyadan haysano ee nuska ah inoo soo qaaday waan u ducaynaynaa kuwa noolna Ilaahay umriga ha barakeeyo kuwa dhintayna Ilaahay subhanahu wa ta'ala jannadii ha geeyo inta annaka inagu hadhayna wax weeyaan gobonadu waa nuska kale inaan buuxino halgan kaaban ku jirnaa imika annako nuskii kale aan buuxinaynaa dariiqii xarbi baan haynaa dariiqii Sheekh Cusmaan Wacays yaan haynaa dariiqii waxaan haynaa maaragtay Cusmaan Rabe dariiqii Umar baan haynaa cilmi dambas weyn odaga loo yaqaano dariiqii Muuse Axmed baan haynaa
dariiqii sheekhaan haynaa, dariiqii waxaan ku joognaa oona ka hadhin insha allahu tacaala ragga qaaliga iyo hablaha qaaliga ah. dariiqaas baa la sii wadi ilaa la gaarayo gobonimo buuxda oo ah mid aan wadankeena gacantiisa ku haysano, madaxweynaha aan dooran karno, baarlamanka aan dooran karno, iyo dadka aan jecelnahay aan kursiga geyn karno, qofka aan jecelnahay kursiga aan ka qaadi karno, dhulkana dadkoo dhan ay u sinaadaan, riisheeska iyo barwaaqada wadanka yeelana loo wada sinaado. ayaanta waxaa la gaadho iyo xurriyadu kaamil tahay, xuduudaada ilaalin karaysid oo lagu ilaalinayn, oo qawaacid iyo ciidamo dibadda kaga yimaadaan ay ku ilaalinayn. hadday marti ku yihiin si marti u fadhinayaan, haddii maaragtay Soomaaliya xuduudeeda la ilaashan karayo oo Kenya, Ethiopia iyo wadano kale aynan ku dhex dabaalinayn, waxaasoo dhan markaan gaadhno iyo gobonimadeenu tahay mid taama oo kaamila oo qayra manquusa ilaa maalinta la gaadhayo halganku waa soconaya insha allahu tacaala. markaa dadkaasoo dhan waxaan ku leeyahay sanad wanaagsan, sanadkaa sanadkii jazaakum allahu khayran. ilaahay tabaaraka wa tacaala waxa aan imilo leenahay noo xaqiijiyo. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.